حسن علي خيره ويه حسن علي خيره تاgeer haya musharax xasan cali khayre iyadoo lagu guda jiro maalmihii ugu dambeeyay ee diyaar garowga doorashada madaxtinimada dalka Soomaaliya sidoo kalena ay musharaxiin kala duwan qaadanayaan shahaadada musharaxnimada madaxweynaha dalka Soomaaliya ayaa waxa sii siyaadaya guuxa iyo aragtiyada kala duwan ay bulshadu ka qabaan qofka noqonaya hoggaanka dalka Soomaaliya qaar ka mid ah dadweynaha ku nool degmada Xeraale ee gobolka Galgaduud oo aan wax ka weydiinay aragtidooda ku aadan musharaxiinta madaxweynaha dalka Soomaaliya ayaa afkaartooda ka dhiibtay alxamdulillaah rabbil caalamiin wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in waxaan soo dhaweynayaa afkaarta raay ururunta ee ku saabsan musharaxa u haboon inuu Soomaaliya maanta hogaamiyo runtii marka anu raay ka hadlo waxaan dhihi lahaa ilaahay ma taqaana inaan tala saarano oo u deysano midkii dalkeena iyo dadkeena iyo diinteena anfacay in ilaahay noo dooro ana oranin qofkaas wadanka u roon anu dhiimahay hebel baa taageersanahay waxaan leeyahay kii wadanka u roon ilaahay ha noo dooro kii noo soo baxaa noo noqdo kii dadka iyo diinta iyo dalka anfaca anagu maanta daan dhahna kaasa noo roon wuxuu noqon doona garan mayno anu waxaan taageero u ahay xasan cali khayre inuu helo waa nin Soomaaliya wax ka qabtay xaq ii sheeg ciidan iyo xaq ii sheeg nabadeynba inta nin wax ka qabtay way wax ku ool ah awalan asaga markii hore taageeraya dadka ugu ii sheeg ugu wax qabadkeeda lamar koowaad ka qaatay uu kamid ah xagga nabadeynta iyo xagga kale wax qabadka kale oo horumarinta ah aad buu wax u qabtay wuxuuna ku leeyahay amaal buu ku leeyahay nasiibnaag ilaahay ku soo saaraan leena asaga faatixadana oo marayna insha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim fikirkayga hadii aan ka hadlo anigu waxaan taageersanahay musharaxa farmaajo inuu markale soo laabto waxaan aaminsanahay inuu yahay dalkan wax u qabtay wax badanna u taray markale inuu soo laabtaan rajaynayaa oo dalkan hawlihii dhimanaa uu sii wado dadkuna ay aaminaan waxaan taageerayaa fikirkayga hadaan ka hadlo dalka waxa loo baahan yahay isbedel baa loo baahan yahay musharaxiinta tartamaysa wax la soo tijaabiyay waxaan tijaabin ku jiraan anigu fikirkayga waxaan taageerayaa Cabdulqaadir Shacali Baghdadi baan taageerayaa waa nin diin leh waa nin dalka wax ka bedeli kara isagaan taageerayaa aad iyo aad baa u mahadsan tahay aniga fikirkayga hadaan ka hadlo musharaxiinta faraha badan oo madaxweynaha Soomaaliya u tartamaya aniga ahaanteeda waxa aan u codeynayaa ama waxaan taageersanahay musharax xasan cali khayre xildhibaanada labada goolena waxaan ka codsanayaa in ay anaga nala taageeraan oo ay nala doortaan xasan cali khayre bismillahirrahmaanirrahiim in kastoo anigu hadda aan xildhibaan ahayn oo aan cod lahayn waxaan jeclaan lahaa anigu musharaxa aan jeclaan lahaa inuu ku soo baxo igama labaysna waa musharaxa dalka iyo dadka badbaadin kara xasan cali khayre weeye xildhibaanadana waxaan leeyahay codkiina ugu heliyo ummadda Soomaaliyeed doorta xasan cali khayre asaga dalka hagi kare